kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheeda sharafta leh meel walba oo aad dunida dacaladeeda ka joogtaan halkani waa bogga YouTube ee Brothers Media Group oo aad alaaba ka daawataan warbixino xasaasi ah oo la isku halayn karo arrimaha fanka warbixinadii ugu dambeeyay ee caalamka dhacdooyin cajiib ah gaar ahaan wararka xiisaha leh ee geyiga Soomaaliyeed warbixinteena maanta waxaynu ku caqaada dhigaynaa fanaanada caanka ah ee reer Hargeysa Xamdi Kuwiin iyo saygeeda oo arooskoodii uu dagay sidii markabkii Titanic inta aynan u guda galin warbixintan xiisaha leh fadlan daawada nagu soo biir oo ka mid noqo kumanaanka saaxiib ee boggeena YouTube ku xiran subscribe ka saaro gambaleel kana furo muuqaalka like saar una share garay asxaabtaada ku maasanid xaaladii ugu dambeeyay ee ku soo kordhay xaaladda arooska u dhaxeeya fanaanada Xamdi Kuwiin iyo saygeeda ayaa soo daraysa tan iyo markii warbaahintu isbuucan isla dhex maraysay in arooskaasi uu fashilmay fanaanada reer Hargeysa Xamdi Kuwiin iyo saygeeda ayaa lagu waday in maalmahan uu arooskoodu ka dhaco magaalada Hargeysa arooskaas oo noqonaya kii ugu horeeyay ee si weyn loo soo agaasimo oo ka dhaca geyiga Soomaaliyeed arooskan ayaa waxaa ku baxaysay dhaqaale gaaraya qiyaastii lacag kor u dhaafaysa $100,000 burburka iyo fashilka ku yimid arooskaas lamaanahan aadka u soo dadaalay ayaa waxaa sabab u ah khilaaf soo kala dhex galay qoysaska labadan lamaane oo isku fahmi waayay kharashaadka iyo wixii ku bixi lahaa arooskan aadka u qiimaha sareeya arooskan ayaan sida aan xogta ku helnay waxaa lagu cusubay shakhsiyaad caan ah oo ay ugu horeeyaan golaha guurtida Somaliland madaxda xisbiyada mucaaradka Somaliland xubno ka mid ah xisbiga talada haya ee kulmiye fanaaniin majaajilaystayaal iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa dhagta u dhigaysa inay isbuucan daawadaan ama muuqaalo ka daawadaan ama goobjoog ka noqdaan mid ka mid ah aroosyadii ugu qiimaha badnaa ee gabar Soomaaliyeed loogu qabto dalkeena Soomaaliyeed geyigan casriga ah xogtii ugu dambeysay ee xaaladda fanaanada Xamdi Kuwiin iyo saygeeda halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa insha Allah fadlan daawadayaal hanaga hilmaamin subscribe gambaleel kana furta si aad xogtaasi aad u daalacataan markii aan halkan soo galin kuma sanadeed inta aan warbixintan mid ka xiiso badan ku kulmin doonana waxaan idinkaga tagaynaa sidaas nabad geliyo